soo dhow walaal haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar si muuqaalada mustaqbalkan soo gelin doona ay kuu soo gaaraan muuqaalka la gare si dad badan u gaaro na caawiyo waad mahadsan tahay 6 shay gabadha aad jeceshahay ay ka doonayso balse marna kuu sheegaynin qodobka koowaad inay ka maqasho waan ku jeclahay fiiri qof kastaba erey baa maskaxdiisa ku weyn marka dumarka laga hadlayo xaqooda wax ku weyn aan rag ahaan u arkin wax weyn gabadhu inay ka maqasho waan ku jeclahay waxa ay ka dhigaysaa inay isfurfurto wax kasta oo niyadiida ku jirto kuu sheegto sidoo kale farxad ayay ka helaysaa isku day in gabadha aad jeceshahay marka ay kuu samayso wax fiican ama hadiyad fiican ay kuu keento inaad si hoose oo naxariis leh aad ku dhahdo waan ku jeclahay qodobka labaad daryeel iyo danayn waa laba eray oo iska agdhow balse kala macno duwan danaynta waa inaad danaysaa waqti siisaa u sheekaysaa farxad iyo jacaylna kaa heshaa halka daryeelka uu yahay in xaaladeeda caafimaad aad ka warhayso waxa dhibayo aad ka joojisid marmarka qaar marka ay xanuunsato cunada ay qaadan weydo waa inaad ku dhibtaa si ay kuu aragto inaad ka fikirayso adiga qodobka saddexaad sikadiisa wax ugu hadiyey adigoon u sheegan u hadiyey hadiyad ay aad u jeceshahay waliba sikadiis ah dumarku aad bay u jecel yihiin shayada kadiiska xitaa may ahaato wax yar waxa ay ka helaan farxad iyo dareenka jacayl oo ku ziyaada qasab ma ahan inaad u hadiyeyso hadiyad weyn balse waxaad u hadiyeyn kartaa wax kasta oo aad awoodo adigoo si qurux badan oo kadiisa ugu hadiyeynayo qodobka shanaad igu faan gabar kasta waxay doonaysaa in qofkeeda uu ku faano ma ahan sheeg balse markaad saaxiibada la joogto xaggeedana kaa weydiiyaan su'aal si fiican uga jawaab una sheeg inay tahay qof aanan la heli karin uga sheekay dadaalka ay bixiso si aad adiga u faraxdid dadkana ugu saraysid u sheeg in la'aanteeda in sidani aad u faraxsanaan lahayn degnaanshaha kaa muuqatana in iyada sabab u tahay marka aad ku fahamtid qofkani waxa iyadana sii la wajbaaraysaa dadaalka ay kugu bixiso ku faan hana ka baqin dadka hortooda aad ugu faani karto shayga ugu dambeeya ee gabadhu jeceshahay laakiin marna kuu sheegaynin waa ammaan ma jirto qof nacib ammaanta laakiin dumarku waxa ay ka jecel yihiin ma jirtaa maanta fiiri adigoo rag ah marka uu qofku ugu dhowaad qurux badan tahay si caadi aad u qaadanaysaa halka dumarka qofka ku dhow waa qurux badan tahay uu dadka kaga duwan yahay waxa ay suu karweynaysaa in muraayadu ay hor istaagto si ay u aragto quruxda aad ku sheegtay ammaan oo ku dheh dadka lamid ma tihid aad baad u qurux badan tahay ammaan oo ku ammaan hadallo qurux badan weliba dadka hortooda because way mudan tahay